iyadoo lagu wado in uu maalinta Axadda magaalada Kismaayo si rasmi ah uga furmo shirka maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kasoo degay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland wasiiro xildhibaano iyo qaybaha bulshada ugu horeyntii ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta ku soo dhaweyno gurigiisii labaad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Sayid Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee ugu soo hormaray oo saabiqada yeelanaya kulanka wadatashiga ah ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay isugu imanayaan xarunta ku-meel gaadhka ah ee Jubbaland magaalada Kismaayo. mudane madaxweyne mudane Shariifkanagi ku soo dhawow gurigaagii waxaan rajaynayaa inay abshirtahay hadduu Shariif soo hormaro moota abshirti waa kow inay abshir tahay kulanku kulan khayr qaban yahay. waxaan uga faa'iidaysanayaa Soomaalida xukuumadda federaalka ah dadka bannaanka jooga iyo cid kasta oo danaynaysa deganaanshaha iyo xasiloonida iyo horumarinta iyo midnimada Soomaaliya shirkan inuu yahay mid wanaag lagu raadinayo wanaag keenaya gobol nabadeed ah xubaan ayna ku jirin tuul una ku jirin dagaal una ku jirin wax xumaanayo ayna wadin wax carqalada midna natiijadaadna ka ogaan doontaan insha Allah waxa ka soo baxa Soomaalidana abshir buu yahay taa marka waxaan u baahanahay in loo fahmo oo ayna cidina sharaysan shirkaani ma aha ballan cid gaara u ah cid cod loogu yahay dhib lagu abuurayo waa mid Soomaali iyo wanaageeda lagaga tashanayo wixii laga hadlayana ayna noqonayn wax ka baxsan sharciga iyo dastuurka. mar labaad iyo mar saddexaad mudane madaxweyne ku soo dhawow aad baan idinkana idinku mahadcelinaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhanka kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhankiisa uga mahadceliyay soo dhaweyntani. ilaahay u mahadcelinayna madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Islaam iyo madaxweyne ku-xigeenada wasiirada xildhibaanada dadweynaha qeybihiisa kala duwan soo dhaweynta diiran oo walaalnimada leh runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa iyo ciidanka iyo saxaafadda iyo intii ka soo qayb gasho dhan runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa. runtii taariikhadan u leedahay soo dhaweynta iyo walaalnimada iyo soorka fiican runtii aadaan kaga mahadcelinaynaa oo ku mahadsantihiin. siduu madaxweynuhu sheegay shirkan shir nadbeed iyo shir wadatashi shir sida Soomaaliya ay dhibaatada maanta ku jirta ay uga bixi lahayd looga tashanayo kuwa dowladiidka oo na dhibaateeyey habkii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinka ay nagu hayaan sida deegaanada tan gaar ahaan labadan maamul oo ay ku dhadhaleen oo dhibaato badan ummaddan u geysteen habkii loogu xoreyn lahaa Soomaaliya nabadeeda sidii Soomaalidu ay aayaheeda ugu tashan lahayd runtii intii madaxweynaha sheegay ayaa loogu tashanaa. Soomaalidu way dareen badan tahay dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa gogashaan madaxweynaha fidiyey markii ugu horeysana ma gobol nadbeed uu fidiyo madaxweynaha gobolaha nadbeed uu fidin waa lagu guuleystaa. January waa ogeedeen intaan joognay Soomaaliya markii ismari weysay Kismaayo yimid alxamdulillah ilaahayna fursad ugu keenay. marka insha Allah haddana waxaan rajaynaynaa in inta hadda oo kuwa dowladiidka ugu horeeyaan oo dhibaatooyinka nagu hayaan tala kuwaas looga adkaan karo oo dalka ku xoroobi karo ummadda Soomaaliyeed dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda ay ku dhamaystirmayso in uu shirkan ka soo baxo. waxaan rajaynaynaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada kala dhimanna sida dhaqso badan inay u yimaadaan ayaan ugu baaqaynaa. marka insha Allah taladan waxay noqon doontaa mid Soomaaliya ay
aydo taariikhdana ay gasho reer Kismaayona ay ku noqdaan kuwii wanaagga mar walba ka talinayay runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo walaalnimada waana mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo shir taariikh uu yahay mar walba laakiin taariikh ay dadka u aayaan ilmaheena taariikhda loogu qoro wixii Soomaaliya isku haysay iyo dhibaatooyinka ka jiray meesha shuushka lagu bixin lahaa inay noqdo aad iyo aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. Khadar Cabdullaahi Abuukar, Kalson TV, magaalada Kismaayo.